horta nebigu waa ahlu janna ogaada nebigu waa ahlu janna ogaada والصديق في الجنة أبو بكر الصديق هو أهل الجنة والشهيد في الجنة قفك إلهي درتي شهيدنا وأهل الجنة والمولود في الجنة كي انتلت علي السوء المير الصقيرين سنوى جنة اللوتري والرجل يزور أخاه قفك ولالك يا مسلم كصوب وقضى في ناحية المصري meel magaalo dhinaceeda ama magaalo kale ama meel koonaha ku soo booqda isaguna la yazuruhu illa lillah ilaahi dartii mooye wax kale aan u booqanaynin fil janna isaguna jannadu ku galaya qof 60 sanadood muslim aha oo salaad tukanayay oo ilaahay hal salaad aanu ka aqbalin 60 sanadood buu tukanayay ilaahay hal salaad kama aqbalin subhanahu wa ta'ala nabiga markii la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam maxay ku dhacday arintaas wuxuu ku jawaabay ربما يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم الركوع ويتم السجود ولا يتم الركوع waxa dhici jirta inuu rukuucda si fiican u rukuuco laakiin sujuuda uu boobsiyo ama sujuuda uu wanaajiyo oo rukuucdii uu xumeeyo 60 sanana waa tukanay ilaahay wuxuu leeyahay war ina aadano habeen iyo maalin waa gafaysaa aniguna dambi dunuubta waan dhaafaa war dambi dhaafi weydiista habeen iyo maalin waa gafaysaan bani aadan waa dambi buu banaanka u yaala waa gafaysaan dambi dhaafi weydiista inta idinaan ilaawin malaga bidixda saaran marka uu damco xumihii ka dhacay inuu qoro kii midigta saarna wuxuu dhahayaa u kaadi 6 saacadood usug bal inuu ka soo noqdo toobadkeena la arkaa hadduu ka soo noqdo toobadkeena xasana alla u qoraya toban xasanaad baa loo qoraya dambi dhaafi xasana loo qoraya hal xasano haddii uu qofkii xumaha sameeyana hal dambi kaliya loo qoraya ilaahay inaad kaalmaysato xoogaaga aqoontaada aqligaaga kartidaada iskuma filnid adigu ilaahay kaalmayso nabigu muxuu oran jiray walaa takilni ila nafsi darfata ayn ilaahu iskuma filnay naftayda haygu halaynin albiriqsi isha inta la isku qabto in la ilaahu naftayda haygu halaynin ilaahay inaad weydiisato inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku kaalmeeyo amalka sidaa ogeeda salaad kasta markuu nabigu tukado muxuu oran jiray sallallahu alayhi wasallam allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati ilaahay igu kaalmee xuskaaga roy hal dadaalo galab iyo habeen iyo subax dadkii masaajidka kula tukanay aataqaanay adarkaysi baa lagu leeyahay hebel waa dhintay wadnaha istaagay gaadhaa jiiray sariirta soo seexday meyd isagoo soo kacay adiga isku halaynaysa yaa quraan ku soo akhrinaya yaa salaad ku soo tukanaya yaa ku soo wardinaya yaa man wa adiga faa'iideyso marka diiwaankaaga buuxso ilaahay markuu ku arko inaad dadaalayso danta aakhiro iyo diintaada u dadaalayso ilaahay waa ku hagaajinaya gabar intay ku timaado ka oranaysa ma jirto iyo qodba sirayso kullu fitna inda geel waa ragga kan adaa waxaan la soo galay gabadha markaas aadan ka hareen waa ka saad u wado marka dam ogoleysiinaysa oo marba ducuga imanayso gabdhaha qodba sirada ka daay adiga walaasha in qodba siraysta ma jecesha ma jeclid run hadaa sheegaysid gabadha dhashay in la qodba siraystana ma jeclid hadaa run sheegaysid marka qodba sirayska iyo qarqarinta iyo